Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada koorsada graphic design ka taas oo aan ku baranaynay software-ka Adobe Photoshop. Casharka koowaad ayaan maanta qaadanaynaa. Waxaan ku baran doonaa casharka maanta sida Photoshop-ka toolskeeda iyo workspace-ka qaabka ay u shaqeyso iyo magacyada ay kala leeyihiin iyo sida aad u abuuran karto workspace adiga gooni ku ah. Kusoo dhawaada mar labaad koorsada graphic design ee Photoshop-ka. Marka hore waxaad ku dhufanaysaa Google Chrome ayaa waxa ku qori doontaa Adobe Photoshop ama waxa ku qoraysaa Photoshop kadibna uu ku soo baxayaa Adobe Photoshop 2020 click see waxa ku soo furmi doona Photoshop-ki waa tahay markii meeshaan aad taagan tahay number 1 waxa u baahanahay inaan abuurano document cusub sidee document cusub loo abuuri karaa waxa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay file kadibna waxa dooranaysaa new waxa ku soo bixi doona shaashadan sidoo kale waxa taaban kartaa control n sidii hore dad qofka hore u yaqaanay ee computerka programmada qaar kood markii la furaayo control n waa new document marka waa la mid control n marka aad taabatid waxa ku soo bixi doono shaashadan qaybtan aan isla fiirino qaybtan width iyo height meesha ay ku qoran tahay documentiga ay isticmaalaysid cabirkiisa meesha laga sameeyo waa tusaale ahaan hadda 1920 1080 aan ugu qoran waa cabirka shaashadaha waa full HD waa muuqaalada oo kale marka laga daawanayo shaashada computerka ama shaashada TV-ga aad ka daawanayso oo kale waa full HD 1920 1080 hadii aad doonto cabiradan waa iska bedeli kartaa cabir badan aad arki doonaa social media posters oo kale cabirada loo isticmaalay iyo ID kaarada iyo business cards-ka waxyaabahaas oo dhan wax kasta cabir gooni ay leeyihiin balse meeshaan laga bedela hadii aad doonaysid cabirkaaga nooca uu noqonayo waxa soo furaysaa qaybtan ay ku qoran tahay pixels kadibna waxaad dooran kartaa inches ka dhigi kartaa centimeter ka dhigi kartaa millimeter ka dhigi kartaa points ka dhigi kartaa waxa doontida ka dooran kartaa hadda waxaan ku dhaafaynaa pixels waa sharxi doonaa waxyaabaha ay kala duwan yihiin iyo waxyaabaha loo kala isticmaalo sidoo kale meeshaan ay ku qoran tahay resolution kana waa documentigaaga quality-giisa meesha laga badiyo ama quality-giisa meesha uu ku xiran yahay hadii aad documenti la rabo in la daawaco oo kala aad sameynaysid waxa sameynaysaa documentigaas waa la badiyaa daabacad oo kale markii waxa uu isticmaalayso waa badinaysaa resolution-ka documentiga marka quality-giisa mar walba kor inaa u qaadi aragtid waa la badiyaa waa 72 marka waa meesha ugu yar 72 hadii aad ka soo yareyso documentiga quality-giisa uu dhumayaa hadii aad doonto 100 ka dhigi kartaa 150 300 inta badan 300 laga dhigaa waxyaabaha marka la daawacayo boorarka iyo kaararka ID kaarada waxyaas marka la sameeyo sidoo kale meesha ay ku qoran tahay RGB waxa loo isticmaalaa kalarada waa color modeska waaye waa soo fureynaa noocyo badan ay leeyihiin labada nooc oo lagu isticmaalka badan yahay waa labada nooc markii aad doonaysid inaad digital ahaan aad u isticmaasho tusaale waxa rabtaa social media oo kale inaad ku soo post gareysid ama wax oo TV ama computer laga daawanayo shaashadooda ama mobile oo kale markii waxaas ay yihiin waxa ku dhaafaysaa RGB color hadii aad daabacad u rabto waxaan printer loo wadana waxaad dooranaysaa CMYK waa magacyo colors waaye waxyaabo laga soo gaabiyo sheegi doona waa kan red green blue kan waa cyan magenta waxyaabahaas laga soo gaabiyaa marka waxa isticmaalayna hadartan kan koran ku dhaafayna hadii aad doonto colorka background-ka waxaan ku dhaafi karnaa cadaanka hadii kale black ka dhigi kartaa colorka waxa ka dhigi kartaa background color kadibna meeshaan ka bedelaysaa oo dooranay nooca aragtida oo color ka dooran kartaa sidoo kale transparent ayaa dhigi karnaa wax color ah oo sameyn markii documentiga noo soo furmo wuxuu noqonayaa documenti aan lahayn for example hamar aan probayno create aan leenahay kadibna documentiga sidaan noqonaa documentiga hadii wax background oo leeyahay malahan hadii aad sawir soo dhigto sawirka wuxuu ka soo muuqanayaa meeshaan soo aan background lahayn hadii sawirkaaga uu PNG oo yahayna wuxuu noqonayaa hadhow PNG ku soo safiray kartaa background la'aan oo noqonaa hal mar aan ka laabano iska xirina documentiga inta laga xiri karaa amniude waxaan leenahay waxaan nooga dhigtaa white okay inta markii aan sameeyno marka waxaan dooranaynaa create waxyaabo fara badan oo meeshan ku yaala jiro waxyaabihii recent-iga hadda aan isticmaalo wax ku sameeyay sidoo kale hadii aad save gareysato preset oo kale for example kan oo kale aad diyaarsatay ama social media oo kale aad u diyaarsatay 1080 waa square kadibna meeshaan aad taaban kartaa falaarta yar ay ku qoran tahay save preset magaca ula bixaysa for example waxaan leenahay social media post kadibna save preset meeshaan save ay ku qoran tahay ayuu noo soo galay hadhow hadii aan doono
markaan soo furnaba waxaan dooran karnaa kan isla markii cabirkaas aan imaanayo haddii aan bedelno ama recentiga aan ku laabtay fiiri wuu isbedela meesha safetka imaad click C waxay noqotay 1080 okay qaybtaan photo ay ku qoran tahay iyadana cabir diyaarsan ku jiro sawirka muxuu ahaa ishaag portrait ayadoo landscape markii aad sameynayso sawir aad sameynayso teaser oo kale aan isticmaalaa qaybta print ay ku qoran tahay iyadana soo kale warqadihii A4 iyo letterski A6 A5 waxyaabahaas oo dhan marka mid kasta marka u baahan isticmaalkiisa u tagi doona insha Allah website-yada oo kale hadii aad website wax u wado ama mobile oo kale waa cabirada mobilada iPhone ka nooca uu yahay iPhone 18 12 okay aan ku laaban meesha aan ugu qoran tahay recent kadibna cabirka anaga aan sameeysanay ayaan isticmaalana xalina create sorry qaybta transparency aan ku dhaafnay mar aan color ka soo dhigano new leh meeshaan waxaan dooranaynaa white kadibna create waxaan noo sameysnay marka white background waa kana meeshaan waxaan noo sameysnay layer ay noogu qoran tahay background locket oo noo xiran colorkiisana uu yahay cadaan okay aanu imaano markii meeshaan aad taagan tahay meeshaan waa interface-ka ama muuqaalka ka soo horbaxaya ee Photoshop-ka wuxuu ka kooban yahay qaybo fara badan qaybta dhanka bidixda meeshaan kaaga muuqato waxa loo yaqaanaa toolbar ama toolska la isticmaalayo okay qaybtan waxa la yiraahdaa minus ama menu bar allaha meeshaan waxa la yiraahdaa option bar meeshaan mar walba waxay ku xiran tahay toolka aad isticmaalayso ay isla bedelaysaa for example toolkan hadda aan taaganahay move tool loo yaqaanaa options kan uu leeyahay show transform controls waxa la arkayna waxa loo isticmaalo auto select ayuna sidoo kale hadii aan doorto polygonal lasso toolka ama lasso tool waa badiyay nooc far badan meesha ku jiro wuxuu leeyahay isagana options sidoo kale kan wuxuu leeyahay options mid kasta oo aad dooratid wuxuu leeyahay qaybta marka option bar loo yaqaan qaybtan cad ee sawirada iyo aan soo dhigi doono oo aan ku sameyn doono design-ka documentiga waxa loo yaqaanaa ayadana canvas ama waa meesha lagu shaqeynayo documentiga workspace waa laha sidoo kale qaybtan waxa loo yaqaanaa panels laha qaybtan waa layer panel channels path properties adjustment mid kasta shaqeeyta wata shaqadiisa u tagi doona insha Allah qaybtan waa colorska switchska waa ayadana nooc colorada kamid ah gradientska waa coloro oo isku laba color ama saddex color ka badan waxyaabo ka kooban buttonska waxa soo dhan waxa loo yaqaanaa panels Allah marka meeshaan hal mar aan imaano windows kadibna waxa arkaysaa meel ay ku qoran tahay workspace ka hadda anaga aan isticmaalayno muuqaalkan waxa loo yaqaanaa essential waa default waa midka asalka ah hadii aad doonto iska bedeli kartaa graphic and web ku dhufan kartaa workspace-ka hadda ku sameysana uu isbedelana oo kala noqonaa meeshaan fiir waa isbedeshay okay aan ku laabano workspace tag essential tag meesha aad ku soo laaban adiga workspace ku gooniya waa sameysan kartaa tusaale waxyaabahan rabaa inaan meeshaan ku soo darsado ka soo qaad meeshaan oo kaleete character-kan waa panel-kan aan soo qaada waxaan ku soo darayaa safar waa kan layers channels paths kaliya meesha yaala hadda waxa uu soo darsamay character sidoo kale qaybtan actions Allah waa soo qaadi kartaa qaybtan qore igu soo daray isagana safkan meeshaan aan ku soo darsatay qaybtan paragraph-ka isagana waa ku soo dari kartaa safkan okay soo ku muuqato marka waa kana properties adjustment actions iyo paragraph waxyaabahan marka hadda anaga sameysanay workspace adiga aad diyaarsato marka hadii aad doonto waxaad sameyn kartaa inaad save dhahdo oo aad save gareysatid oo hadhowta aad workspace-kaaga dib u isticmaashid si aad u save gareysatidna waxaad dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay windows kadibna workspace kadibna waxaad dooranaysaa new workspace magaca ula baxaysaa for example waxa ula baxaynaa xidig kadibna waxaa leenahay save hadda waxaa noo sameysan workspace noo gooni ah okay aan tagno workspace ka duwan aan tagno xidig workspace ka duwan aan tageynaa tusaale ahaan waxaan tageynaa photograph oo kale oo isbedelaya kadibna waxaan tageynaa hadana windows workspace midka anaga aan diyaarsan ku dhufo Kenya noo soo laabanay sidaas marka u abuuran kartaa workspace adiga ku gooni ah hadii aad doonaysid waxyaabahan aad bedesho inaad sidoo ku soo celiso waxaad tagaysaa windows waxaa leenahay workspace kadibna waxaa leenahay reset essentials sidiisii hore oo ahaa ayuu dib
noogu celinaya. waa tahay casharkeena koowaad maanta halkaas ayaan ku sameynaa oo aan ku baranaynay sida loo soo degsado Photoshopka, sida loogu shubto computerka iyo waxyaabaha Photoshopka uu ka kooban yahay toolska oo kale iyo panelska. sidoo kale waxaan ku baranay sida dukumeenti cusub aad u abuurato iyo cabirada dukumeentiga. waa anigoo ah Xasan Abuukar Axmed Xasan Xidig oo idin leh nabadgelyo. waxaan noo balanaa casharka xiga. fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, videogana like saar si uu dad badan u gaaro. asxaabtaadana la wadaag. nabadgelyo.